الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين halkan waxaa ka hadlaya Ibrahim Wagar afhayeenka Australia ee uu xisbiga wadani waxaan doonayaa maanta inaan arrimo yaro kooban oo ku saabsan arrimahan ku gadaaman doorashooyinka aan xoogay ka idhaaho si la socono waxa dhacday arrin taariikhda Soomaaliland ugu ku ah oo xisbiga xaakimkii dalka xukumayay uu madaxweynihii qaranka ku eedeeyo in maxkamad la soo taago arrintaas waxaan leeyahay waa arrin qaranka iyo magaca iyo maamuuska madaxweynaha meel ku dhac ku ah manay ahayn arrin looga fadhiyo in gudoomiyihii xisbiga xaakimku arrimahaas oo kale uu ka dhawaajiyo haddii aynu ku yaraha karno arrimaha doorashooyinka sidaynu la soconno doorashooyinka waa tii ay dhowr jeer dib u dhaceen waa tii la mudeeyay maxkamadda guud ee qaranku astaysay in la qabto doorashada madaxweynaha iyo doorashada baarlamaanka oo isuwan duruufo yimi awgood waa kii madaxweynaha qaranku arintay kala saaray arrintii baarlamaanka dib u dhigay dib u dhaca dib loo dhigay doorashooyinkii baarlamaanka may dhicin wax buuqo ka dhacay may dhicin in xisbiga xaakimku ku eedeeyo cid gaara oo ama madaxweynaha ha noqoto ama cid kale oo mas'uul qaran ha noqotee may dhicin waxaana hubaal ahayd in xisbiga xaakimka iyo gudoomiye Muuse ay u ololeeyeen in la kala qaado doorashooyinka waxaan leeyahay gudoomiye anigoo ixtiraam weyn ku haya tii baarlamaanka maxkamad baa xukuntay dibna waa loo dhigay cid dambi lagu saaray iyo cid maxkamad lagu saaray midna ma jirin marka waxaan leeyahay madaxweyne qarankan adaa lagu doortay adaa hogaamiyihiisiya ha u joojinin inta madamqadayaasha ah ee xisbigan magaranaysaay aan u damqanaynin ummadda maanta tabaalaysan waxaad u martaa dariiqii aad u martay haddii ee badankiisa leeyahay tii baarlamaanka marka waan hubaa oo ma ogolaanaysid in ummad tabaalaysan oo dibadda waran oo darxumaysan oo abaaro aan qarniyadan ina soo marin ay ku habsadeen in maanta sacab iyo cayaar laga dultunto inaanad ogolaanaynin waan hubaa marka waxaan leeyahay xeerkii aad u martay kii baarlamaanka ayaad u mari doontaa tanna dhinaca kale haddii aynu isdul taagno waxaynu ka warqabnaa ummadda reer Somaliland in dalkan Somaliland ay ku soo fool leedahay doorasho in ummadda Somaliland ay dooran doonto hogaamiye haga mustaqbalka qarankan waxaan leeyahay dadka reer Somaliland in hala socdaan taariikhda iyo dhacdooyinka maalin walba soo noqnoqonaya ee madaxda qarankan doonaysa inay hoggaanka u qabataa ay maalin walba la imanayaan waxaanu ka warqabnaa shalayto in gudoomiye Muuse uu lahaa gudoomiyihii baarlamaanka isla markaana ah musharax u tartamaya inuu madaxweyne qaranka ka noqdo uu ku yiri maxkamadda la taago maantana uu leeyahay madaxweynihii qarankan loo egmaday ee loo doortay maxkamadda la taago waxaan leeyahay arrintaas ummadda Somaliland ee wanaagga jecel ee horumarka rabtaa arrintaa haystu taagto waa inay ogaadaan waa kuma hogaamiyaha ay ummadda Somaliland u dooranayaan qarankan waxaan leeyahay hogaamiye cadhaysan oo ciil qaba mala hogaamiye cadhaysan uma baahnin hogaamiye ciil qabana uma baahnin waxaynu u baahannahay hogaamiye toosan oo dadka iyo dalka u naxariista waxaynu u baahannahay hogaamiye tubta toosan iyo wanaagga ku haga dalkeena kaasaynu u baahannahay ummadda Somaliland ha doorato hogaamiyahaas والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.